Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Halkani waa Daalacan Media. Daawadayaal meel kastoo joogtiin waxaan idin leenahay kulan wanaagsan. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Halkani waa Daalacan Media. Daawadayaal meel kastoo joogtiin waxaan idin leenahay mar kale kulan wanaagsan. Dowladda Qatar oo safaaradii labaad ee ugu weyneed Soomaaliya ka dhisanaysa magaalada Muqdisho. Dowladda Qatar ayaa sheegtay inay safaarad cusub ka dhisanayso magaalada Muqdisho, taasi oo noqon doonta safaaradda labaad ee ugu balaca weyn ee safaaradaha ku yaala magaalada Muqdisho. Dhismaha safaaraddaasi ayaa noqon doona safaaradda soo labaysa safaaradda Turkiga oo iyadu haatan tan ugu baaxad weyn dhismayaasha safaaradaha shisheeye ee ka dhisan magaalada Muqdisho. Shabakadda wararka Middle East Monitor Memo ee fadhigeedu dhexe ku yaala magaalada London oo aan warkan ka soo xignay ayaa qortay in dowladda Qatar sanadkii hore balaarisay maalgelinta mashaariicda horumarineed ee ka wadaan dalka Soomaaliya. Dowladda Qatar waxay kaloo sanadkii hore ciidanka ammaanka ee Soomaaliya u deeqday 69 gawaarida gaashaaman, waxayna sidoo kale gurmad ka geystay in dadkii ku dhaawacmay qaraxyadii ka dhacay Muqdisho caafimaad ahaan loogu qaado dalkaas si lagu soo daaweeyo. Dowladda Qatar waxay ku bilowday dhismaha dekedda cusub ee magaalada Hobyo oo kaabiga ku haysa badda cas, waxayna maalgelintaas u muuqataa mid qayb ka tartanka u dhexeeya dowladaha Qatar iyo Imaaraadka Carabta. Hay'adda maalgelinta Qatar ee dhanka horumarinta waxay sheegtay in mashaariicda ay ka hirgelinayaan Soomaaliya ay qayb ka tahay dadaalada socda ee ay dowladda Qatar ku xoojinayso horumarinta wadamada kale iyo in la helo degenaansho iyo barwaaqada dalalkaasi. sida ay hadalka u dhigeen dhinaca kale agaasimaha waaxda qorsheynta iyo xiriirka caalamiga ee wasaaradda warfaafinta ee xukuumadda federaalka Cabdiraxmaan Axmed ayaa waxaa bartiisa Twitterka ku soo bandhigay sawirada ama naqshadda ee safaaradda cusub ee Qatar ka dhisanayso magaalada Muqdisho. Waxaa lama soo bandhigin qarashka ku baxaya dhismaha safaaraddaasi cusub ee Qatar ka dhisanayso magaalada Muqdisho, iyadoo qarashkaasina ay dowladda Qatar ay iyadu maalgelinayso ay bixinayso. Daawadayaal xubinteena warka waanaginta waxaad kala socoteen Daalacan Media.